2020 waa dhowda sidaan u shaqaysanaana laga yaabaa inaan u soo noqono gudoomiyaheena waxa weeye Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ummadda Soomaaliyeed xaqii ay ku lahayd uu guday shaqadii ay ka rabteen uu soo qabtay haddana waxa weeye inta dhiman waa uu nala sii dhamaystirayaa insha Allah taala waxaan u soconnaa safar dheer baan u soconnaa walaasheena Bruna waxay tiri hore loo soconaya marka hore u wada soconayna hadduu Ilaahay yiraahdo intii waa mahadsan tahay hadda waxa weeye waxaanu ku jirnaa boogadhayis inaynu iswada cafino walaalkeen maanta wuxuu noo sheegay in uu dhamaanteen cafiyay idinkana wuxuu idinka dalbaday inaad cafisaan horta ma cafiseen ma maqlina gudoomiye waa maqlaysaa waxa weeye walaalaha saaxiibada oo xilka awal ku dhiibtay haddana aad si sharaf leh aad adigu ugu soo celisay waxa weeye wixii la kala gaarayna waxa weeye halkaasi ku baxday munaasabada muhiimadeedana waxa weeye madaxweynaha ayaa dhigay annagu wixii uu gudoomiyuhu noo sheegi lahaa maanta ayuu runtii noo sheegay annaguna inaanu wixii uu noo soo qabtayna aan uga mahadcelinno mudane gudoomiye mahadsanid dalkaagaad u qabatay hay-adihii iyo institutionkii golaha shacabka oo ah hay-adda ugu maamul wanaagsan uguna heer sarreysa dowladda federaalka ah waxaa hoggaankiisa lagu soo dhisay inagoo dhan baa wada dhisnay laakiinse waxaa hoggaankiisa lagu soo dhisay oo sharaftaas iska leh waxa weeye walaalkeen Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo aad iyo aad ugu mahadsan cidda aanu hadda dooranno oo hadduu Ilaahay yiraahdo 15 bari xogaha campaign dhici doonee marka uu dhaco ka bacdi qofka aan dooranno ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu barteeda ka sii wado bahashu meelay halka la soo gaarsiiyay ay hoos uga dhici karta ma joogto runtii institution adag baa dhismay dowladnimadeennii waxa weeye hanaqaad bay hadda ku sugan tahay dhamaystir bay nooga baahan tahay kulligeen waa isku wada marxabaynaynaa waad ku wada mahadsantihiin qof walba ay doorku ka qaatay yani dhismaha dowladnimada waxa weeye aad iyo aad baad u mahadsantihiin aniguna kolley waxa weeye dagaalka dhinacu baan uga jiray anigana hal cafiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدم مهتين ياي قدومي كرهين كالوادة قراها شعب كان مدنا مال عبد الله عود وحان ربا مركبنا نوية يرو كسيمها قدوميها قراها شعب كان أهنا قدومي كرهين كواد مدنا عبدولي شيخ إبراهيم مودي بركو لما يستنى يستقع كسر دوين دونه مدحناها جمهورية الفدرالية الصومالية مدنا محمد عبد الله محمد فرماجو قدومي سدو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحوينه dhammaan qof kasta oo inta jooga mansabkii iyo magaca uu ku joogo ay ku salaaman yahay aniga waxoogaa waa laga fahma badan yahay qof dad uma sheegi karo mudana madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinaynaa xafladan sharafta leh qiimaha leh oo aan caawa horeyba u arag oo aad ugu tala gashay gudoomiyaheenii hore mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari aadan kaaga mahadcelinaynaa waana ku faraxsannahay anugu warkayga ma sii badno waxaan rabaa inaan hal kelimo ku soo koobo gudoomiyaha waa laga faallooday xaaladiisa nin walbaba intuu ka yaqaan ayuu ka sheegay intaasi in ka sii badanna waa la qabaa waxaan rabaa inaan idiraahdo mudanayaasha sharafta leh inta halkan joogtay inta naga maqanba waxaan leeyahay intii yareedoon soo marnay oo aan isxaxaganay waxaan filayaa inaan iska cafin hor ha loo socdo waa mahadsantihiin saaxiib baa la wada yahay waa caadi siyaasadda dhaqankeeda iska noocaas ma filaya marka hadda cid wax isu qabtay inay jirto maxaa yeele madaxweynaha xafladan uu noo qabtay wuxuu ugu talagalay inaan isku cafin waan ugu mahadcelinayaa waxaan warkayga ku soo koobayaa ma badne
mudana madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa guddoomiyaheenii hore mudana maxamed sheekh cusmaan jawaari karaameyntii iyo sharaftii u lahaa inaad adiga qaybtaada qaadato waxaan kaa rajaynaynaa maamuuskii iyo karaamadii uu lahaa inaad adiga nagala wareegto codsanaynaa inaad maamuuskii iyo karaamadii uu lahay saaxiibkayna inaad la wareegto adigana aan kugu ogaan hadduu ilaahay yidhaahdo madaxweyne بسم الله الرحمن الرحيم سماها صراحة الشعب سماها قدوم يكفين كلابات رئيس وزارها قدوميها محكمة قدومي هوري محمد شيخ عثمان جواري قولها وهالكن جوجه أنا شرفت عليه كل واحد يقول سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن عاوة وحوي هبين وطوعي هذا الماها وهبين أن سوينا من عشوق وأنا قلت لك عاوتين إن جواري إن هل كان هرتي سكعت إنه وحلا وحي هري ودعي سيدي هري الله شيء بين أسعى في الني ولنا وبرلمانك مديسين يحي أو wax khilaaf ah uu sideen mudane jawaari waa wada ognahay waa oday Soomaaliyeed khibrad aad u badan waxaan ku raad u leh dhanka dawladda xilal badan soo qabtay wax aad u fara badan ku soo kordhiyay institutionka baarlamaanka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo sida mas'uuliyadda odaytinimada leh ee ku jirto uu u tanaasulay isagoo ilaalinaya institutionkan in wax alla wixii dhibaato ah oo maxaa ku raad jidid ahaa inay ku ekaatay tii hore wax ka dambeeya sida lagu yaqaano baarlamaanada adduunka maxaa ku raad in la isdilo in dhibaato dhex marto baarlamaanka uu ka ilaaliyay una qaatay inuu tanaasulo baarlamaankan iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda uu tanaasulay macnaheedu waxay tahay inuu magaceeni sharafkeeni ka ilaaliyay ceebta waxaan aaminsanahay tanaasulkaas uu sameeyay oo innaba hayraatay wax shuruudo ku xiran inuu Ilaahay ugu bedelayo sumcad iyo sharaf iyo magac maxay ana soo maray iyadoo dadku ay leeyihiin bas sidee ku tagaysaa ummadoo dhan baa ku rabtaa Ilaahay diiwaaragtaa wuxuu igu bedelay marka Ilaahay waa Qafuur Rahiim awoodiisu wax limid ma laha waxaan aaminsanahay inuu markay ugu saaran tahay naxariista Ilaahay ka helayo badbaadada baarlamaankan iyo shacabka Soomaaliyeed ka ilaaliyay foolxumada iyo magac xumada mudane jawaari waa saan sheegay kulligeena ugu leh xushmad iyo karaamo kaligay ma aha anagoo dhan uu naga mudan yahay waxaana ku ballanay inaan sii wada shaqeyno oo si dhow wada shaqeyno oo aqoontiisii iyo tusaaleyntiisii iyo taladiisii uusan nagala fogaan Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax alla wixii ku haray oo aqoona inuusan nagala fogaan waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iideysto maanta oo ah dabaaldegii dabaaldegaynay sanad guuradii 58aad ee aasaaska xoogga dalka Soomaaliyeed runtii waa maalin weyn haddii dalku ciidan lahayn qaranimadiisu khatar inay ku jirtaa marka inaan xoojino ciidankeena oo aan taageerno oo golaha shacabku ay xoogga saaraan oo weliba nagu inaan xuquuqda ciidamada qalabka sida aan korrino aanan ka warqabno maxaa yeelay halkan aan fadhinaa waxaan arkay inay ku jiraan xaalad adag waxay ku jiraan dhufiisyo waxay fadhiyaan bannaanka waxay ilaalinayaan qolaas horarka ah inaysan noogu imaan halkan
kanaaca ku qoraysa waxaa laga yaabaa inay u dhaawacmaan inay u dhintaan marka inaan la ognahay oo mar walba xasuusanna xaaladda adag ay ku jiraan aanan garab ku siino aanan ku taageerno aanan ku daryeelno waxaa laga rabaa xildhibaanada sharafta leh iyo xukuumadda waa haddii aan doonayno inaan dalka ka horeyno qulooyinkan horarka ah oo shabaabka ah waxaa aan markhaatimad doonta ah oo markhaati ka ah inaan soo arkay 3 isbuuc aan deganaa wasaaradda gaashaandhigga inaan soo arkay ciidan diyaarsan oo niyad wanaagsan oo doonaya iyagoo duruuf adag haysta inay dhintaan laakiin maamul xumo ku dhacday insha Allah maamul xumadaas waa ka saxinaa waxa la wixii daryeel ah ay mudan yihiin waa siin doonaa insha Allah hawlgalladana dib bay u bilaaban doonaan si aan qoladan nabadiidka ah aan uga fogeyno meel kasta oo dawladda gacanteeda ku jirto waa mahadsantihiin waxaan noo ballanaa xildhibaanada sharafta leh inaad mid ahaataan oo aan u wada shaqeyno qaranka Soomaaliyeed oo aad la shaqaysaan xukuumadda hadday noqoto sharci dejintii iyo ansixintiiba haddaan midaysannahay waxaan aaminsanahay inaan shabaabka adkaanayno laakiin haddaan qaybsannahay waa marka ay ka faa'iidaysan karaan oo ay dhibaatooyinkan aragnay oo dee dadka ay leynayaan aragyada joogtada ay samaynayaan hoteeladay gelayaan ee u suurtoobayso laakiin haddaan midaysannahay oo aan u midaysannahay inaan dalkan dib uga xoreyno shabaab aan u midaysannahay inaan dowladnimadeena dhisno aan u midaysannahay inaan ciidanka dhisno waxaan aaminsanahay si dhow oo aad iyo aad u dhow inaan uga adkaan doono qolooyinkaas horarka ah ee al-shabaab saad ogtihiin maanta waxay qarxiyeen ciyaal dhalinyaro ah oo kubad ku ciyaaraya Baraawe waa ilmo yar ah oo aan qaan gaarin iyo waxay soo dhex dhigeen miina soo dhex dhigeen waxay halkaas kaga dhigeen dhalinyarada 4 dhalinyaro ah oo waxba galabsan oo ciyaaraya marka macnaheedu waxay tahay waxaa noo yaala howl aan fududeen iyo noo taalla annaga yaan isu jeedin aan isin buuxino dhibka iyo qaraxyada iyo dagaalka joogtada ee nagu hayaan shabaab yaa wax walba nooga weyn cadowga kaliya aan leenahay waa iyaga waxaan u baahannahay muddo 2 sano wax ka yar inaan kulligan usoo wada jeesano dharkan u gashano shacabkana maxaan ku yiraahdaa ku ogaadino ama ku dhiirigelino ama ku kicino inaan hal meel uga soo wada jeesano cadowgaasna wada haysta oo dalkeena iyo sumcadeena iyo dadkeena ee dhibaatada u geysanaya maalin walba waxaan rajeynayaa insha Allah annagu waa soo jeesanay kulleeyba idinkana diyaar baa tihiin annagoo gacmaha haysanay inaan dowladnimada dhisano annagoo gacmaha haysanay inaan cadowga la dagaalno annagoo gacmaha haysanay inaan soo celino sharafkii iyo karaamadii uu dalkan lahaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.